in ka badan 30 sano ayuu ahaa daaci dadka ugu yeeraa inay ku xirmaan Allah oo ay jidka badbaado iyo hanuunka raacaan isagoo meel wanaagsan ka jooga darajada ciidan iyo shaqada dawladnimada ayuu go'aansaday inuu noqdo daaci diin faafiya ilaa uu ka gaaray da'da 65 sano jir nin aan gaban qarsan bareerihiisa ku dhacle heli og hadalka ubuucdiisa bartay 3 cilmi ayuu ahaa Dr. Sheikh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo maanta lagu dilay magaalada Kismaayo Sheikh Cabdinaasir oo weerar argixisay loogu dilay magaaladaas waxa uu dhashay 3 guur ka hor inta aysan Soomaaliya qaadan xurriyadda 1957 isagoo ku dhashay deegaan hoos yimaada magaalada Buuhoodle aabihiis Xaaji Axmed waxa uu ahaa oday diineed oo aad u jecel diinta iyo quraankaba waxa la sheegaa inuu maalin walba 7 juz akhrin jiray sheekha iyo qoyskiisu waxay u wareegeen magaalada Horufadhi sanadku markuu ahaa 1964 halkaas oo uu ku biiray madraso quraan oo wasaasay Sheekh Cusmaan iyo Garaad Soofa Durraan sheekhu waxa uu madrasadaasi ku xifdiyay 15 juz oo quraanka kariimka ah intuu uusan u wareegin magaalada Burco ee gobolka Tagdheer halka oo uu ku biiray madrasadii Saalixiyada quraankana ku khatimay sheekhu waxa uu u wareegay magaalada Berbera 1965 waxaanu haleelay dugsigii Al-Falaax halkaas oo uu ku bartay shareecada Carabiga iyo culumta maadigaba 1967 waxa uu ku guuleystay inuu ka mid noqdo ardaydii laga aqbalay maxadkii Jaamic Al-Azhar waxaana loo ogolaaday inuu dugsiga dhexe ka sii bilaabo sheekhu muddadaasi waxa uu xoogga saarayay ka faa'iideysiga culimada diinta gaar ahaan waxa uu cilmi badan ka faa'iiday Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Maxamed markii uu maxadka Jaamacadda Azhar ka dhameeyay dugsiga sare waxa uu sheekhu u wareegay Muqdisho halkaas oo cilmiga ka raacday culimada kale Sheekh Ibraahim Suuley Sheekh Maxamed Macallin iyo Sheekh Maxamed Nuur Qawi sidoo kale waxa uu ku biiray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed muddadaasi kadib waxa uu hayaan waxbarasho ugu safray dalka Yemen halkaas oo uu diinta ka raacday culimadii madhabta Shaaficiga iyo caqiidadaba islaamana ayay ka bilaabatay markii ugu horeysay ee uu fidiyo diinta Islaamka caalim diineed mid maadi bulsho iyo mid military ayuu ahaa ilaa uu darajo sare ka gaaray ciidamada militariga Soomaaliya waxa uu ka qayb galay dagaalkii Soomaaliya ay la gashay Ethiopia 1977 oo dhaawicii ka soo gaaray awgeed naanays loogu baxshay kumanaan jiil oo waxbaray ayaa maanta dunida jooga kuwaasoo sii wada fidinta faafinta diinta Islaamka oo ka shaqeynaya 40 sano ee la soo dhaafay waxa kamid ah waxqabayada sheekhu ka tagay inuu asaasay maxadka Al-Furqaan ee barashada diinta Islaamka kadib la tashiyo kala duwan oo uu la sameeyay saaxiibadiisii iyana ay hore u dileen kooxda Al-Shabaab ee Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan iyo Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax 1996 isku day ay wadeen dawladda Itoobiya iyo kooxo Soomaaliya ayaa lagu xiray maxadka Al-Furqaan ee Laascaano balse dadaalkaasi muddo dheer kadib sheekhu waa uu ku guuleystay dib loo furo magaalada Laascaano iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa maalin ay xasuusan doonaan maanta dhiigga culimada iyo waxgalka Soomaaliyeed waa mid ka mid ah dambiyada ugu waaweyn ee la galo intii ay bilaabatay afkaarta kooxaha qaraxyada iyo dilalka ka geysta Soomaaliya si adag ayuu uga hor yimid aragtidaas habowsan waxa uu qabtay kulamo waaweyn oo lagu bayaaminayo inaysan diinta Islaamka meelna raad uga lahayn in la daadiyo dhiigga ummadda muslimka cadaynta mowqifkiisa iyo sheegidda xaqa ayaa u abuurtay cadaawad xoogan oo ugu dambeyn gacantooda u sababsaday laba hadal oo adag ayuu ka jeediyay janaasadii laba ka mid ah saaxiibadiisa dacwadda oo iyana isla kooxdan ay dishay kala ahaana Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan iyo Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax labadaba waxa lagu dilay oo ku hawlan cibaadada Allah iyo cadaynta diinta Islaamka buuni caabuda wacdi sheega aan wanaag la bakhaylin nin hal adag oo ku adag diinta ay maanta si dhiiggiisa lagu daadshay waxayna dadka Soomaaliyeed oo dhan ka tacsiyeeyeen geerida naxdinta leh ee ku timid Dr. Sheikh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo kamid ahaa xubnaha sarsare ee Jaamacadda Al-I'tisaam ee Soomaaliya ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda